السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الله وقالي ميل والبو دنيا كجوجتان كسو دبادة جانل كيغا halka digala socotaan waa Fahima Channel hadii ay channelkeena maanta kugu horeyso fadlan ha iloobin inaad subscribe noo saartid maanta qisada ay idin wada waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Hodan oo ku nool wadanka South Africa gabadhan sidaan ayay qisadeeda ku bilaabanaysaa waxay tiri waxaan ku noolaa South Africa waalidkeen waxay ku nool yihiin Soomaaliya waxa aan gadaa dukaan oo gabar ayaan shirka iskula nahay ayay tiri dukaanka wiil ayaan isbaranay oo runtii waqtigaas aan u haystay inuu yahay wiil wanaagsan wiilkii markii aan isbaranay kadib oo aan muddo wada soconay waxa uu igu yiri abaay inaan isguursano ayaan rabaa teeda kale xaas ayaan qabaa oo ii joogto Soomaaliya marka waxa aan rabaa in aan ismihir qarsano oo xaaskeyga weyn aysan ogaanin in aan gabar kale South Africa ku guursado waayo weyniyad jabaysaa muddo badan ayay xaaskeyga isugeysay wiilkii waxay tiri marka hore waan ka diiday laakiin markii dambe ayaan ka ogolaaday in uu imihir qarsado waan ku fududaaday ayay tiri arrinkaaseti kadib waxaa dhacday wiilkii asiga oo waalidkeyga u sheegin in aan ismihir qarsanay muddo bil ku dhawaad ayaa isla nooleen oo isla joogna ayay tiri maalin buu isoo wacay wuxuu igu yiri abaay safar ayaan u socdaa Soomaaliya ayaan aadi rabaa la soco wuu baxay ayay tiri Soomaaliya ayuu aaday Soomaaliya asigoo jooga ayuu isoo wacay wuxuu igu dhahay abaayo waxa imaaday wadankeygii xaaskeyga ayaan la joogaa waxa aan u sheegay inaa gabar kale ku guursado South Africa kadibna way rumaysan weysay xaaskeygana way maseertay saas darteed abaayo waxaan rabaa inaan ku furo iga raali noqo waxay tiri maxaa dhaca walaalo maxaa dhib jiro maya abaay xaaskeygi weyneed ayaa aad u maseertay marka waxaan rabaa inaan ku furo waxaan dhahay tiri sidii roon alla ayaa og okay waan qaat furiinki ninkii waa ay furay ayay tiri adi dhowr bilood kadib ninkii ay soo wacay tiri maalin wuxuu igu yiri abaayo maxaa dareemaysaa xaaladaada ka waran waxaan ku dhahay tiri aad u fiicana hadda ayaan ka imaado shaqada wuxuu igu dhahay abaayo waxaan u maleynayaa inaa xanuunsantaa sideedoo kale waayo waxaa laga helay cudurka AIDS-ka haye maxaa dhacay waay kadib adigana waxaan u maleynayaa inaa cudurka AIDS-ka qabtid oo walaalo waxa ay igu kadisa ama ay igu boobsiisay meherka oo xatooyada ama meherka qarsoodiga ah oo waxa qabta miya cudurkaas waxa oo igu dhahay tiri maya markii aan ku guursanayay maanan qablaa kadib dambe ayaa la iga sheegay inaa cudurkaas qabo waxay tiri waa rumaysan waayay nafteyda ayaan la hadlay nafteyda ayaan canaanta wax aan isku sheegay ayaan garan waayay waan carar dhakhtaraan tagay tiri waxa laga helay cudurkii AIDS-ka waa rumaysan waayay tiri ninka ayaan wacay marna uu iga qaban marna igama qabanayo laakiin waxay tiri telefoon qabashadiisa maxay ii soo kordhinay waaba nin maxay xanuunkii uu qab ii qariyay xaaskiisii kalena u qaaday tiri because xaaskiisa ayuu aaday cudurkaas uu qaban kolba inay ogeen xaaska u badiyay tiri ninkii kadib waa iska dhaafay inaa xiriiri waayo wixii igu dhici rab waa igu dhaceen aniga ayaa fududaaday ayay tiri oo markii hore nin aan dhowr bilood aan wada soconay ka ogolaaday inaa ismihir qarsano waxay tiri dukaanka ayaan gadi jiray maalintii aad ayaa u niyad jabay waxay tiri isla hadal ayaan galay xataa waan joojiyay inaan shaqada aan aado intaas markii aan ku jiro waxay dhahday dhowr sano ayaa noloshaas ku jiray niyad jabkaas qalbi jabkaas waalidkeyna uma sheegi karin waayo waalidkeyga haddii aan loo dhibkaan ayaa igu dhacay maxaa kuugu dhacay ciyaal matiid ayaa leeyahay waay aan ninka noogu soo sheegi weysay marka waxay dhahday wax aan sameey ayaan garan waayay waalidkeygana uma sheegin xitaa gabadhii aan isla shaqeynayna uma sheegin intaas kadib waxay tiri dhowr sano ayaa laga joogaa cudurkaasi AIDS-ka markii la iga helay oo nolosheeda aad isbedel ugu dhacay kadib waxay tiri waxaa isbaranay wiilkii waan sheekeysanay markaan sheekeysanay kadib muddo ayaan wiilkii wada soconay waxaan ku heshiinay ayay tiri in aan isguursano haddaba wiilkan ay isguursan rabaan waxa ay tiri waxa aan markii aan isguursan rabno waqtigii in aan isguursano aan rabno wax ayaa ka dhimay yacni ballan ayaan qabsanay si waalidkiis waalidkeyga ugu tagaan markaasi tineeskeensiyaan si ay isku guursano marka waxay tiri dhibaatada jirto waxa ay tahay in aan cudurkan AIDS-ka qabo maanan u sheegin waa tan labaad waxa uu emailaya ayay tiri inaa gabar ahay oo aan wax guur ah soo marin laakiin gabarnimada waxa ka daran ayay tiri inaa cudurkaas qabo ma ogo anigana uma sheegin dhibkii haysta waxa ay tahay ninkiima waxaan u sheegaa inaan cudurkaas qabo haddii aan dhaho ninkii maanta walaalo cudurkaas ayaan qabaa wuu iga cararaya ayay tiri
sidoo kale haddii aan qayaano sida aniga la iisoo qayaanayna waa dhibaato kale waayo qofka waxaa laga yaabaa inuu ila sii noolaan waayo marka uu ogaado inaan cudurkaas aan ku daartay ama cudurkaas aan qabo ama cudurkii uu qaado inuu qofkii iga cararo. tan saddexaad waxaa u baahanahay ayay tiri nolol waxaan ahay maxaa la dhahaa qof bini aadana rabo inuu guursado owlaad helo. arrinteedu waxay dhahday waa isku dhexyaacsan tahay ma aqaan meelaa tala ka bilaabo horta waalidkayga uma sheegi kara ayay tiri nin ayaa i guursaday oo cudurkaas igu daarta ama cudurkaas yacni ii keenay ma dhihi kara ayay tiri. gabadhii ila shaqeynaysana sidaasoo kale malihi saaxiib goonihi aan sirteedii arrimaheyga nolosheeda aan u sheegto. dhibaatada i haysato waa tan ninkii in aan ka qariyo cudurkii ahaayo oo aan qayaano anigaa la isoo qayaanay dhibaato weyn ay iga imaanayso waayo anu waxaa rabaa ayay tiri nin aan guursado oo ila noolaado oo maxay ahayd nolosheeda inta ka dhiman aan wada qaadano. ninkii markuu ogaado wuu iga tagayay tiri oo yacni uu ogaado inaa qayaanay haddii aa u sheegana ninka sidoo kale waa uu iga carara ayay tiri. tan saddexaadna waxaa u baahana inaan nolol sameysto waxaan ahay gabar yar maxaa igula tali laheedeen dhibkaas ayaa i haysto arrinteeda ma sahlano waxaa idinka sugayaa tala aada u wanaagsan oo aan ku qanco. waxay ku darta hadalkeeda hana isoo dhihinina maxaa marka hore ninka aad u qudba sareysatay. waxay tiri wax kasta waa qadar maanta wuxuu ilaahay ii keenay adna wuu kuu keeni karaa maanta waa dhibanahay ha igu diganina waxaa sugayaa jawaabtiin iyo hadalkiina macaan iyo jawaab i qanci doonta ayay tiri. waxa aan diyaar u ahay hadda in aan guursado laakiin waxaa guurkayga ka horeyso su-aalaha aan yacni jawaabaha aan u baahanahay oo ah ninka ma ka qariyaa inaan cudurkaas qabo ma qayaana oo sideeda ma ku guursadaa iyo tan kale oo ah in aan rabo guur oo aan ahay gabar yar. sidoo kaleeta arrintaas maxaa ka dhihi laheedeen asxaabey haddii adi ay kugu dhici laheeday runtii wax badan ayaa dareemi laheyd qofka ay arrintan maanta haysato ayaa ka hadli karo. marka waad mahadsantihiin sida wanaagsan ay ila socotaan qisooyinkii hore sida maxaa la dhahaa aad talooyinka ugu soo dhiibateen aad iyo aad ayaa idinkugu mahad celinayaa. haddii aad rabtid inaad qiso ila soo wadaagtid waxaa igala soo xiriiri kartaa facebookgayga fahiimo xaaji oo insha allah halkan idin soo saari doono. marka facebookaas wixii akhbaar waa igala soo xiriiri kartaa insha allah haddii qiso kugu dhacda ee jirto waa idin mahad celinaya dhammaantiin. muuqaalka sii sheergareeya laagta dhac ku siiya abaayadan lagu magacaabo hodan waxay sugaysaa taladiina insha allah waadna mahadsantihiin. muuqaalkana sii sheergareeya ayaa idin leeyahay sidoo kale laagta saara subscribe-ka dhac ku siiya kulli waa inoo dhiirigelin waa idin mahad celinaya mahad celintiin asxaabey marnaba kama daalo. sidaas iyo muuqaalka xigo intaa ku kulmeyno waxaa idinkaga tegayaa nabadgelyo.